waxbartaan 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 barwaaqo gaarane waxbartaan waxbartaan waxaan ka soo hadalnay local area network laanan ka soo hadalnay sidoo kale waxaan ka soo sheekaynay marka faa'iidooyinka uu leeyahay laanka waa hadii faa'iido uu leeyahay laanka aan soo sheegnay waa faa'iido darada markaas ma aragtay uu leeyahay laankana inaan fahanno waa muhiim marka okay insha Allah marka waxaan ka soo hadalnay local area network laanan ka soo hadalnay sidoo kale waxaan ka soo sheekaynay marka faa'iidooyinka uu leeyahay laanka waa hadii faa'iido uu leeyahay laanka aan soo sheegnay waa faa'iido darada markaas ma aragtay uu leeyahay laankana inaan fahanno waa muhiim marka marka faa'iido daradiisu marka laba dhinacan ka fiiri karnaa laanka marka waayo laanka waxaan dhahnay anaga networka wuxuu ka dhex shaqeynaa dhismo gudihiisa school ama jaamacad wixii la mid ah marka bal kombiyuutarada oo laga isticmaalayo marka schoolka ama jaamacadda ama restaurantiga dhismaha gudihiisa laga isticmaalayo haddii cable-ka marka ma aragtay fail garoobo means waa cable-ka haddii marka ma aragtay uu go'o kale maxaa dhacayo marka dhammaan network-i marka wuxuu noqonaa down means waa kombiyuutarada dhammaantoodaba waxay luminayaan marka adeegyadii marka iyaga isticmaalayeen marka ma isticmaali karaan waayo linkiga ama marka shabakadaba waxay ka helayaan dhammaantooda waa marka cable-kii u keenayo marka ha ahaado fiber optic ama cable-da kale oo network loo isticmaalo crucial cable-ka marka sidoo kalena laakiin ogow haddii marka network-ga fail garoobo oo cable-kii wax gaaro ama haddii marka local area network-gi ay isku xirnaayeen dhammaan kombiyuutarada as marka ma aragtay access point oo wifi ay isticmaalayeen maxaa dhacayo marka network-ga qaabka u fail garoob karaa marka waayo cable ma la isticmaalina wuxuu fail garoob karaa maybe waa access point-gi inay cilad ku imaato marka aaladda kadibna marka network-ga dhammaan marka ma aragtay private network-gi laga isticmaalayay marka ma aragtay deep access point-ga cilad ay ku imaato maxaa dhacayo kombiyuutarada marka ma isla xiriiri karaan marka dhammaan waa network-gi marka wuxuu noqonaa waa down connection-kii luminayaan marka and therefore marka waa maxay waxaa la isticmaali karaa haddii inta ay dhacdona marka waa troubleshooting la sameey karaa marka cilad bixin marka iyadoo markaas ma aragtay network admin-ka uu fiirinayo cilada marka ma aragtay analyzing oo sameynayo iyo sidoo kale configuring oo sameynayo marka network administrator-ka marka there is some steps oo markaas asiga uu marayo sidoo kale local area network-ga drawback uu leeyahay maxaa ka mid ah waa limited waxaan dhihi karnaa waa small area means waa maxay waa la xadiday marka goobta lagu isticmaalayo xataa way xadidan tahay marka waayo goordhaweed waxaan dhahnay local area network-ga geographical area location-ka uu gaarayo waa maxay waa 1 kilometer aan dhahnay marka 1 kilometer 1 km uu gaaraan dhahnay geographical area location-kiisa marka 1 kilometer wixii ka bato waa maxay local area network marka ma aragtay intaas uu ku yahay waxa marka ma aragtay qasab ugu naqanay marka in nooc kale oo network inaad isticmaashid marka insha Allah nooc kale markaan gaarno aan ka hadlayna marka this is now marka waxaan dhihi karnaa waa local area network insha Allah marka arday in la fahmiyaan rajeynaa marka waa what is the local area network nooc labaad waxa waaye waa metropolitan area network marka ama waxaan dhihi karnaa waa LAN okay LAN marka maxaan dhihi karnaa marka عفوا ومان maxaan dhihi karnaa waa metropolitan area network sidoo kale network-ga ma local area network ma la mid yahay no lama mid aha wuu ka weyn yahay marka waayo network-gan halkee loogu talgalay marka inuu marka ka dhex shaqeeyo within the cities marka caasimadaha ama wadanka gudihiisa in laga isticmaalo marka maan markaan ka hadlayno waa maxay marala markaan la barbardhigno local area network-ga uu ka weyn yahay sidoo kale wuuna ka yar yahay wide area network waa
waan gaari doonaa hadda laakiin metropolitan area network balan fahanno muxuu yahay qaabku u shaqeynaa iyo sidoo kale meeqa kilomitir uu gaaraa marka maaragtay mar ala haddii aan la barbar dhigno local area network marka marka goor dhaweed local area network ka soo hadalnay waxaan dhahnay marka ilaa iyo 1 kilomitir local area network loo isticmaali karaa marka local area network wuxuu gaaraa ilaa iyo 1 kilomitir uu gaari karaa dhahnay marka 1 kilomitir wixii ka bato kambaniga haddii farac uu ku leeyahay ka waran oo isku jiro faracyadiisa 2 kilomitir 3 kilomitir ay isku jiraan marka waxaa qasab noqonayso marka waa metropolitan area network in la isticmaalo marka metropolitan area network in la isticmaalo waayo local area network gordweed waxaan soo dhahnay waa network markaas ka dhex shaqeynayo dhismaha gudihiisa marka jaamacadaan ku base gareynayba waxaan dhahnay jaamacadda kilometer 4 maybe waa xafiisyada markaas maaragtay dhismahaas ku yaalo dhammaan haddii loo baahan yahay marka in la isku xiro oo network la helo networkaas noociisa marka wuxuu noqonaa local area network uu noqonaa marka haddii loo baahdo marka maaragtay kambasyada kale ay leedahay jaamacadda sida cambaska maybe waa X control oo kale iyo sidoo kale cambaska kale oo marka barakaado kale haddii loo baahdo in marka cambasyadaas dhammaan ay isla xiriiraan waa macquul ma tahay marka local area network inay isticmaalaan no waayo cambasyada marka haddaan fiirino marka maaragtay halkii kilomitir way ka dheer tahay marka soo ma 1 kilomitirna marka maaragtay ka badan ay u jiraan marka cambaska therefore marka maxaa loo qasban yahay in la isticmaalo metropolitan area network marka man in la isticmaalo waayo manka waxaan dhahnay asaga wuxuu ka bilaabanaa sida caadiga 2 kilomitir halkuunu ku eg yahay marka ilaa iyo 100 kilomitir oo soconaa marka ilaa iyo 100 kilomitir marka waa possible waa macquul in marka maaragtay la isticmaalo metropolitan area network what about 100 kilomitir kadib haddana marka waan u baahanayba kambaniga maybe faracyadiisa marka waxay ku yaalaanba waxay iskugu jiraan 150 kilomitir maaragtay iskugu jiraanba oo geographical area location what's possible oo wadanka gudihiisa way haddana wadanka banaankiisana ma aha macquul ma tahay marka maan inaan isticmaalno marka jawaabtu marka waxay noqonaysaa maya macquul ma aha waayo networkan maanka waxaa loogu talagalay ilaa iyo 100 kilomitir inuu marka maaragtay systemyada ama communication linkigaas marka maaragtay inuu markaas uu ka shaqeeyo marka wixii 100 kilomitir ka bato waxaa iska leh nooc kale iska leh insha Allah noocaas kale marka waa gaari doonaa kadib waan ka hadlaynaa haddii la hidmo laakiin ogaada hadda 100 kilomitir marka waa maxay haddii lagu yiraahdo marka maaragtay ilaa iyo 100 kilomitir haddii isku jiraan faracyada oo businesska uu leeyahay marka waxaa kugu filan metropolitan area network inaad isticmaashid marka waayo metropolitan area network waa maxay waa network within the city la yiraahdaa sida caadiga uu ku magac dheer yahay waa network markaas oo ka shaqeynaya caasimadaha gudahooda marka laga yaabo marka maaragtay wadamada qaar ka mid ah caasimadahooda marka maaragtay kilomitirka isku jiraan aad ay u badan tahay marka laga yaabo wadanka gudihiisa marka loo baahdo nooc ka duwan metropolitan area network in la isticmaalo marka insha Allah waan arkaynaa oo soo socda tusaale waa this is marka waa example halkan noogu yaalo kale maybe waa businesska branch office iyo central iyo warehouse iyo factory uu leeyahayba marka dhammaan xarumahaas wuxuu marka uu isticmaali karaa metropolitan area network hadday isku jiraan kilomitir ka ah 100 kilomitir iyo in ka yarba hadday isku jiraan geographical area location kooda marka maybe waa marka maaragtay waa kambaniga waa marko Hargeysa maybe marka waa this is marka waa example ahaan uu qorqoray laakiin ogow kilomitirka iyo marka maaragtay halka kilomitirka isku jiraan marka maaragtay inaad u fiirisidaad la rabaa marka waayo hadda example halkan uu qoran waa maxay Boosaaso Muqdisho Hargeysa marka amalan dhahay laakiin ogow sida caadiga ah official ka ah metropolitan area network waa wuxuu ka bilowdaa 2 kilomitir
wuxuuna soconaa ilaa iyo maaragtay 100 kilomitir oo soconaa marka therefore marka qeybahan hadda waa fahan ahaan marka halkaan uu soo qoray oo marka maaragtay halkay iskugu jirjiraan oo kale oo network marka maaragtay geographical area location markaas loo isticmaalayo laakiin ogow haddii loo baahdo oo real time ahaan loo baahdo in la isku xirxiro marka maaragtay company-ga faracyadiisa kala duwan oo ku kala yaalo marka Hargeysa Muqdisho Boosaaso waxaa loo fiiri doonaa marka geographical area location markaas maaragtay oo u dhaxeeyo goobahaas marka and tusaale marka this is one example of the metropolitan area network and metropolitan area network marka waxaan dhahnay waa network oo markaas maaragtay within the city marka oo marka geographical area location kiisa oo marka ilaa iyo 100 kilomitir uu gaarayo marka oo loogu talagalay wadanka gudihiisa in loo isticmaalo marka okay tusaale marka waa jaamacadan ku base gareeyay tusaale marka waa jaamacadu waa ilaa iyo dhowr campus ay leedahay campusyada maybe waa Barakaad KM Forex Control labada campus oo kale hadda kilometer 4 oo kale maybe waa local area network halkaas marka maaragtay ka shaqeynayo X control oo kale another local area network marka labada campus haday rabaan inay isla xiriiraan marka maxaa loo baahan yahay marka sida caadiga waayo campuska KM4 dhammaan kombiyuutarada waxay ku xiran yihiin aalad la yiraahdo hub campuska kale oo la yiraahdo X control dhammaan kombiyuutaradii waxay ku xiran yihiin aalad kale oo la yiraahdo switch waxa loo baahday marka labadii campus in la isku xiro marka waa in la helo way horta campus oo centralized oo labada campus bay ku soo xirmaan marka oo campuskaasna marka maxaa yaalo campuskaas wuxuu noqonaa Barakaad oo kale Barakaadana marka waxaa marka halkaas marka maaragtay routerkii noo yaalo routeradii halkaas yaaliya marka maaragtay X control routerka yaali ku soo xirmi doono haddii KM4 na marka routerka yaalay Barakaad routerkaas interfacekiisa ku soo xirmaa marka wide area connection kana marka maaragtay qaabkaas u dhacaa laakiin ogaada tusaale ahaan kaliya u sameeyay tusaalaha in la fahmo metropolitan area network maxaa la yiraahdaa marka halkuuna gaara metropolitan area network metropolitan area network marka waa soo sheekaynay inshallah marka nooca kale oo aan arkayno waa maxay waa wide area network marka waa noocii saddexaad aan galeynaa marka wide area network marka maxaan dhihi karnaa marka waayo waxaan ka soo hadalnay hadda local area network waxaan dhahnay networkaas wuxuu ka dhex shaqeynaa within the building uu ka shaqeynaa marka baaxadiisana wuxuu gaaraa ilaa iyo 1 kilomitir uu gaaraa marka 1 kilomitir ka badan haddii loo baahdo network inuu markaas maaragtay baahida ay noqotana organizationka waxaan dhahnay waa metropolitan area network in la isticmaalo laga soo bilaabo 2 kilomitir ilaa iyo halkuu ku egyahaasna ilaa iyo halkuu gaara ilaa iyo 100 kilomitir la isticmaali karaan dhahnay 100 kilomitir wixii ka bato maxaa dhacayo marka 100 kilomitir ka badan marka possible way metropolitan area network waa loo isticmaali karaa laakiin ogow bandwidth-ka iyo data oo marka maaragtay systemyada serverada kala duwan sida marka FTP serverka ama marka maaragtay web serverada ama marka maaragtay DNS serverada ama all these marka serveradaas haddii marka 100 kilomitir ka badan servera yaalo ama kombiyuutarada yaalo oo loo isticmaalo metropolitan area network connection maxaa dhacayo marka waxaa dhacayo bandwidth-kii inuu ku imaado marka delay uu ku imaado marka that means waa maxay culays badan inuu imaado sidoo kalena replication-kana xilligii loo baahnaa inuu dhici waayo marka waa maybe waxaa la isticmaalay marka maaragtay some group policy marka maaragtay object yaa la isticmaalay dhammaan objectyadaas waxay ku keysan yihiinba marka DC domain control computer la yiraahdo domain controlkaas ku yaala marka sida caadiga real time waxaa la sameeyaa maybe wuxuu yaalaa marka waa site location u dhex yaala
site kaasna waa maxay site ku wuxuu isku xiraaba marka xarumihi kala duwanaa sida marka X control iyo KM4 amro isku xiraaba therefore maxaa dhacaya marka businesskiina marka 100 kilometer ka badan oo isticmaalnay metropolitan area network replication kana marka xilligii loo baahnaa ma dhacayo culays tira badan dhacayo backup-kii ku dhacayo sidoo kale data transfer haddii la sameeyana datadii laga yaabo destination-ka inay gaari weyso xilligii markaas maaragtay looga talagalay marka connectionada qaar ka mid ahna iyagoo up ah aanan shaqaynaynin marka xilliga marka maaragtay kilometerkiisa uu dhaafo metropolitan area network kilometerkii markaas oo looga talagalay marka okay sidoo kale nooca kale oo saddexaad aan arki doono waa maxay waa WAN la yiraahdaa marka wali waxaan ku guda jirnaa noocooyinka markaas uu leeyahay marka network marka noocan saddexaad marka waxa la yiraahdaa wide area network noocan markaan fiirino noocyadii hadda aan soo arkaynay dhammaan uu ka weyn yahay marka waayo waxaan ka soo sheekaynay hadda 1 kilometer ka soo bilaw ilaa 100 kilometer aan soo sheegnay networkyada loo isticmaali karo noocyadooda ogow 100 kilometer wixii ka badan 100 kilometer ka soo bilow wixii ka badan wide area network na marka maaragtay loo isticmaali karaa marka waayo WAN shaqadiisa marka waxay tahay country to country inuu gaaro WAN shaqadiisa waxay tahay wadanka gudihiisa in lagu isticmaali karo hadiiba 100 kilometer ka badan markaas maaragtay connection-ka uu yahay marka WAN na marka maxaan dhihi karnaa wide area network laga soo gaabiyay sidoo kale definition-keeda marka maxaan marka maaragtay aan ku define garay karnaa waa network shabakad waay shabakadaas shaqadeeda marka maxay tahay inay isku xirto kombiyuutero oo kombiyuutaradaas oo marka maaragtay geographical area location-ka ay yaalaan oo aad u fog yahay marka tusaale organization-ka xafiis wuxuu ku leeyahay Muqdisho xafiiska kale wuxuu ku leeyahay Kuala-Lumpur uu ku leeyahay marka waa laba wadan waay Soomaa xafiis wuxuu ku leeyahay Muqdisho caasimada xafiisna wuxuu ku leeyahay Kuala-Lumpur uu ku leeyahay marka maaragtay caasimada marka waa laba wadan marka therefore marka maaragtay waa qasab inay isticmaalaan marka WAN ay isticmaalaan si marka shaqaalaha oo dhammaan oo labada xarun ay u joogaan hal network ay hal shabakad oo markaas oo xiriirta ay dhammaantoodaba marka ay u wada isticmaalaan marka adeegyadii iyo wixii marka organization-ka oo adeegyada uu bixinayay marka si marka organization-kana local area network-yada kala duwan oo xarumihiisa marka maaragtay laga isticmaalayo dhammaantoodaba ay u noqdaan marka hal shabakad ku jiro oo dhammaantoodaba adeegyadii wixii marka maaragtay traffic oo network traffic oo u noqdo mid markaas maaragtay oo fudud oo marka oo dhammaan useradiiba adeegyadii ay wada isticmaalaan marka tusaale halkan noogu muuqdo wuxuu noo muujinaa wide area network maxaa la yiraahdaa just tusaalahan waxaan ka soo qaatay buugan ka soo qaaday marka figure-kan waxa waaye waa 1.6 marka waa wide area network ka hadlaa marka wuxuu noo muujinaa sida caadiga marka sida caadiga wuxuu noo muujinaa figure-kan wuxuu isku xiray 3 local area network isku xiray marka this is now marka waa local area network 1 halkan marka waxaa noo local area network 2 halkan waxaa noo local area network 3 marka waayo WAN waxaan dhahnay marka maaragtay far geographical area location loo isticmaalaa marka ogow wixiiba markaas maaragtay 100 kilometer maaragtay wixiiba ka bato waa maxay haddii marka network baahidiisa ay tahay 100 kilometer in ka badan sida caadiga marka waxaa qasab noqonayo wide area network in la isticmaalo marka qasab marka haddaan la isticmaalin waxaa dhacayo network ma noqonayo network markaas shaqeeyay oo shaqadii markaas loo baahnaa oo sidii loo baahnaa markaas maaragtay useradii ay u qabsadeen marka maybe hadda waa 3 branch ka dhigi karnaa organization-ka waa one office wuxuu ku leeyahay maybe waa Muqdisho ku leeyahay office kale wuxuu ku lahaa karaa maybe waa Kenya kale
office kale wuxuu ku lahaa karaa maybe United maybe waa marka maaragtay Imaaraad oo kale ku lahaa karaa marka AU ku lahaa karaa marka organization ka faracidiisa kala duwan hadiiba marka maaragtay wadamo waa marka geographical area location ka baaxadeeda ay tahay 100 kilometer in ka badan waa wide area network connection marka qasaba in la isticmaalo sida country to country connection oo sameeyna marka waayo organization ka waxaan dhahnay wuxuu farac ku leeyahay Muqdisho farac kale wuxuu ku yaalaa marka Kenya farac kale wuxuu ku sii yaali karaa marka United Arab ku yaali karaa marka dhamaan marka xarumahaas waxa isku xiraayo ama nooca network loo isticmaali karo waxa la yiraahdaa marka wide area network la yiraahdaa marka hadii la soo gaabiyo la yiraahdo WAN marka faa'iidooyinka uu leeyahay wide area network waa maxay marka faa'iidooyinkiisna marka lama soo koobi karo laakiin in yar marka oo markaas maaragtay kamid ah faa'iidooyinka uu leeyahay wide area network waa inuu markaas oo large geographical area location hadiiba markaas maaragtay ganacsiga uu yahayba inuu markaas oo communication linkigi oo ka dhigo mid markaas maaragtay successful ah marka si marka aaladaha xarumahaas oo geographical area location kooda kala fog ay u share gareeyaan resource-ga marka sidoo kale faa'iidada kale uu leeyahay waa maxay WAN network waxa lagu xiri karaa aaladaha sida telefoonka kale waa macquul marka wide area network in lagu xiro sida laptopka iyo tabletka iyo computerada wixii la mid ah marka sidoo kale marka wide area network sida caadiga ah wuxuu isticmaalaa marka radio transmit oo isticmaala am radio frequency kaasoo marka shaqadiisa ay tahay inuu markaas helo marka codsiyada ama requestida uu imaanayo client marka maaragtay ama aaladaha marka oo ku xiran marka client computerska marka bal faa'iidadii haddaan ka hadalnay oo wide area network faa'iidada daradana marka ama drawback marka inaan aragnano waa qasab marka drawback uu leeyahay wide area network maxaan dhihi karnaa marka drawback uu leeyahay marka waxaan dhihi karnaa investment costiga ama marka maaragtay wuxuu u baahan yahayba wide area network qarash aad u tiro badan oo u baahan yahay hadii marka businesska uu yahay mid cusub marka waayo businesska uu cusub yahay tusaale business cusub aan sameynay businessna marka wuxuu ku yaalaa city to city caasimad waa city to city caasimada oo isticmaalnay aan marka xarumaan ku leenahayba oo businesska uu ka shaqeynaa marka waxaan rabnaaba WAN connection inaan sameyno hadii maxaa dhacayo marka waa qarash tiro badan aan u baahannahay Soomaha qarashka tirada badan waa maxay aan u baahannahay maxaa kamid ah waa network device inaan soo iibsano sidoo kale inaan soo iibsano marka cable aan soo iibsano fiber optic aan soo iibsano marka maaragtay inter device aan soo iibsano aan soo iibsano router aan soo iibsano switch aan soo iibsano hadii loo baahan yahay bridge marka waa qalab aad u badan ama tiro badan ka baxayo marka loo baahan yahay hadii wide area network oo marka maaragtay oo initial setup hadii loo baahdo in la sameeyo marka okay sidoo kale wide area network maxaan dhihi karnaa marka wide area network waxa loogu baahan yahay qofka xiraayo marka oo xirfad oo markaas maaragtay oo network admin-ka inuu marka xirfadiisa aad u sareyso marka oo marka maaragtay xirfadiisa sida troubleshooting inuu sameeyo karo sida marka maaragtay sida experience badan inuu u leeyahay oo WAN connection badan inuu soo xiray sida fiber optic oo ku soo xiray ama cable kale oo network loo isticmaalayo coaxial cable-ka oo hore uu soo xiray marka sida marka maaragtay troubleshooting of the network expertina inuu markaas maaragtay some concept oo ka haysto marka kadib marka maaragtay wide area network administrator kaas oo markaas maaragtay possible ay tahay inuu xiro marka
connection keeda marka marka waa noocii saddexaad waan baranay network-ga haddii in yar marka aan summary ahaan aan usoo maro waxaan ka soo hadalnay ama waxaan ku guda jirnayba noocooyinka markaas maaragtay uu leeyahay computer network-gas marka waxaan kusoo sheegnay ilaa iyo marka maaragtay dhowr nooc haddaan soo baranay waxaa ka mid ah local area network nooca labaad marka waxaa ka mid ahaa metropolitan area network nooca saddexaad waxaa ka mid ahaa marka oo ugu dambeeyay hadda aan ka soo hadlaynay wide area network insha Allah halka loo nooco marka maaragtay aan arki doonaa oo la yiraahdo PAN oo laga soo gaabiyay personal area network marka noocan qaabku u shaqeyn doonaa marka noocan marka network-ga marka maxaa loogu talgalay marka waxaa loogu talgalay marka xarumaha oo organizationada inay ku isticmaalaan si marka maaragtay oo core looga dhigo network-ga si marka maaragtay network-gaas ugu xirmo aalada kale marka this is now marka waxaa la yiraahdaa marka maaragtay bank qaabkaas uu shaqeynaa marka bank haddii aan soo koobo halkan bal aan fiirino marka tusaale oo kale computerkan hadda waxaa ku xiran waa aaladahan ku xiran maybe waa mouse oo kale iyo marka maaragtay computer kale maybe remote control or maybe waa wuxuu leeyahay marka maaragtay printer marka all these waa maxay waa aalado markaas maaragtay personal area network marka waxa laga wadaa marka personal area network bank-na marka shaqadiisa horta maxay tahayba waxa loo isticmaalaa si ay inuu transfer ugu sameeyo failasha iyo dokumentiyada oo markaas maaragtay oo within the private network laga isticmaalayo inuu gudbiyo marka sida email iyo digital photo marka maaragtay inuu transfer ku sameeyo iyo videos iyo calendar appointment-yada marka all these markuu transfer ku sameynayo ama aaladaha isku xiran yihiin qaabkay isku xiran yihiin marka iyadoo la isticmaalayo by bluetooth ama iyadoo la isticmaalayo by infrared link la isticmaalayo marka this is now marka waxaa la yiraahdaa marka waa personal area network faa'iidooyinka uu leeyahay personal area network waa maxay marka faa'iidooyinka uu leeyahay wax kale ma aha waa safe waana secure marka waa mid la isku halay karo sidoo kalena faa'iido kale uu leeyahay marka waa maxay kaliya waa marka aaladaha markay isku dhow yihiin marka maaragtay ilaa iyo 10 mitir oo kale aaladaha markay isku jiraan waa 10 mitir oo kale aaladaha markay isku jiraan ay macquul tahay inay marka adeegan baan ay isticmaalaan marka faa'iido darada uu leeyahay waa maxay waa connection-kiisa waa mid buur ah marka markii la barbar dhigo marka maaragtay connection-ada kale sida marka maaragtay sida connection-ada kale oo access point-iga kale markii la barbar dhigo marka sidoo kalena distance-iga ama xawaara distance-iga ama baaxadda markaas maaragtay waxbartaan barwaaqo gaarane waxbartaan barwaaqo gaarane